تعالى وبركاته داود يا الوعد ونكسن بل نقد داون إنسان وشاف ميديا ما أنتوا حنجعل السين بل إنان حقا قرحيا أو قرح براجتي مركو حصلها أصحاب هذا كداوته مال بكوحرن سياسة عرب بالشيء وحياة حقا بوق كشكلين بل مركز عقار سوق مجالده أو سوق ريتش مركو حنجعل السين إنان سوق ريتش أو مجالده ما أنتوا كانوا حلقة عن جوجا وعارف إنسان ومجال أدي قرح بدن يا ضد استي أو مال قشتي يا لكن رجعلها ما دام هالكان عن إمادي أنا عن هذيك أنا إذا تصو ما دام ويدرك أدسي غرفة بديها ضد الصور والصحن لكن ميل قاسها ربعنا إذا جيو أو صوت أو صوت بكسي ستيشن halkii marka hore aad jirtay waayo had wax badan ayaa laga bedelay ereydii marka waxaan xogayaa in isla aragno maadaama uu sheego inuu waxyaabo ay tusayaan bكسي ستيشن san ay aad jirtay oo waxa laga sameeyay jiray wax la markaad jiri koox ama mutaqana dhuxusha ayaa laga sameeyay jiray xilliga horta inkastoo hadda la bedelay adduunka casriga ah nuclear power oo waxa hadda loo bedelay marka saa arkaysaan waa kana magacii meeshan xilligii korontada xaajatay waa 90s xilligaas ayaa dadkaani korontada ay dhalin jireen iyagoo ka dhalin jireen markaas dhuxusha ka dhalin jireen marka meeshan saan xaajata arkaysid hadda waa la bedelay waxaa loo bedelay shopping center aad qurux badan hadda in dhahba ay ku soo dhacayaan oo waxyaabaha aan rabo in adduunkan aan janjiga adduunka dhacay in Soomaalina ay la jaanqaado waxyaabaha kale marka hadda Soomaaliya ay sameeyaan halkaan halkaan waa qaabkii ay u shaqeyn jirtay korontada power station qaabka u shaqeyn jirtay weeyaan qaabkan u shaqeyn jirtay saan bay u dhisneed saas bay ahayd dhuxusha ayaa macnaha maaragtay ay ka dhalan jirtay marka boqolkiiba maxaa la dhahaa 20 magaalada London ayay markaas korontada xilligaas ay sii jirtay marka isbeddelka dhacay hadda muxuu yahay marka waxaan rabaa isbeddelka dhacay inaan isla eegno oo asafir macnaha halka aan la jirteen korontada haajatay waa la bedelay oo waxa loo bedelay markaasi shopping center aad u badan oo casri ah oo wax walba aad ka helaysid waxa kaliya aad ka helaynin anigoo nool ayaan ka helay laakiin wax kale oo u dhiman ma jiraan marka shaqada waa kana saan loo sameeyay shaqadan aad u qurux badan ayaan loo sameeyay wax aan laga helaynin ما جرى القطار شوق لو باهن تاعي حساب وحياة كلو باهن تاعي everything أو بلا آدم هيو بينو جاي يقول هالكار يا كنيسة هالكار كنيسة مركا أدوكو أركيسة معناها ما تمانه ما تقدر يسوق مجورة أدوكو مركا سال أركيسة
maalinta ka dambaysa adduunka wuu sii guurayaa waxbaa la dhisayaa waxbaa la samaynayaa annagana waxaa mataqaanaa dagaal iyo intaa la taagan yahay barbareem ayaa ku jirnaa marka waxaan rabnaa dhalinyarta adduunka Soomaaliyeed ee adduunka jaalis ku helay inay yimaadaan inay ku indha qaadaan waxyaabaha horumarka adduunka ay joogaan ay sameynayaan in annagana aan la jaan qaadno oo aan waddankeena markaasi aan kula noqono waayo waddan walba adduunka ay sida wadamada India Bangladesh maxaa la dhahaa iyo sheeka Malaysia waxaa bedelay maanta ay systemkooda aad ku quruxda badan ee bedelay waxa weeyaan macnaha maanta dhalinyarada qurbaha joogtay ee wax baratay waayo saaxiibkii qoroole ayaa ku dhihi jiray waxaan u baahannahay dad maskaxdooda ay wanaagsan tahay horan ku taabaan laakiin uma baahnin dad macnaha maaragtay shahaadooyin wato warqado wato marka inta badan dadka shahaadooyinka qaato waxaa mataqaanaa shahaadada la iska muuqeemeeyo shahaadada qayb kasta lagu sameyn kara adduunka hadda aan joogno kale qofka maba dhacaba oo shahaado uu qaadanaya jaamacadda ku qaadanaya laakiin waxaan u baahanaa waxaa waaye in dad maskaxdooda ay wanaagsan tahay oo cilmiga ay galeen oo wanaagsan yahay ayaa waddanka bedeli kara marka Battersea Power Station ay ahaa jirtay waana bedelay maadaama dhuxul ay ahaa jirtay 25% magaalada London ayadaa sii jirtay markaas koonto sii jirtay hadda marka meesha saas ahaa jirtay maadaama adduunka uu horu maray oo dhuxush laga gudbay nuclear ayay noqotay marka nuclear magaalada lagu hayn karo waxa loo bedelay marka outside London ayaa la geeyay dadka halka outside London ay marka magaalada London aan arkaysaan aan korontada aan ka qaadanaa halkii ahaa jirtay marka Power Station ahaa jirtay waxa loo bedelay shaqsiga aad ku qurux badan arki doontaan ina keena marka daawadayaal nashqadii aad soo arkayseen aan idigu soo tusayay halkay ahaa jirtay powerka korontada laga dhalin jiray ahaa jirtay waa tana iyadoo markaasi oo caadi ah waa tana qaab noocaana ayaa loo sameeyey waxaan filayaa marka in aad qurxood arkaysaa qaab ku dhisanta waa arkaysaa dad badan ay imaanayo way soo booqanayaan way fiirinayaan waxaana maaragtay qaabka iyo nidaamka loo sameeyey halkan koronto laga dhalin jiray bal cid isdheesiya maanta waa kaasa marka waxa loo baahan yahay horumarada marka la sameynayo kulanto janjiga la sameynayo kulanto la jaanqaadka ayay kamid tahay ma fahanteen waa arkaysaan hadda meeshan dadku iska fariisanayaan waxbay soo gadanayaan waxbaa lagu cunaya halkan biyo isaga jira waa arkaysaa dadka waa isaga mushaaxayaan waa arkaysaa meel walba si qurux badan waa arkaysaa qaybta xagga waxa loo sameeyay fiiri qayb yar oo waxa waan dadka ay imaanayaan isaga baashaalayaan carruurta hataa la soo wadi karo ee lagu cayaarsiin karo waa marka qaybkii saan ayuu isku bedelay oo saan ayaa loo qaxiyay oo dareemi kartaa inta qof marka ay ka shaqeynayso shaqa marka meeqa qof ayaa shaqa abuur loo sameyn karaa ma hadda arkaysaan waa showsitar aad u weyn waayn ima dukaan ayaa ku dhex cali kartaa ayaa isleedahay gudaha ayaan geli doonaa oo waan safiri doonaa dadku way imaanayaan xilliga qoraxda ay jirto kalento way iska imaanayaan meeshaan iska fariisanayaan waxbay dalbanayaan way ku baashaalayaan waxbaa mataqaanaa taami ku qaadanayaan laakiin hal dhibaataa jirto maryooley ku arki maysid intii meelaha yimaadaan maryoolo isla fahmi karaa soo maahan Soomaaliya wax Soomaali meesha ku arki maysid intii yimaadaan macnaha maaragtay ama gabar iyo wiil jacayl jilaa ahaada ama maxaa la dhahaa family oo soo baxay ahaadaan intay aragtid wax aad ku arkaysid ma jiraan dhibaato jirto waxa waaye ummado kale inta ayaa imaanaya halkaan ku raaxaysanaya ay arkaysaa marka waxaan dhihi lahaa marka dadka magaalada London ku nool oo kaleento markii qoraxda inay jirto kaleento iska soo baxaa soo tirtana meelaha iska imaada meelaha quruxda badan iska imaada baakana raashinka yarka iska dalbada xogaa wax isdaransiya hataa haba yaraadee ma fahanti haba yaraatee xogaa yar isku tuurayaan oran lahaa ma fahmino marka boqoshadii waxaad mid yar oo kooban iska noqonaysaa
maadaama aan siyaasad iyo waxyaabo badan aan maalmahan aan qorqoraynay aan ka yara nasanno ilaa dhibaato lagu jiro ka ilaahana leh dhibaato ma ku jirni karaa maalin kasta yaa aan ka yara nasanno oo arkaysaa dadka si fadhiya waa arkaysaa ilaah ku dhashay hal qof oo Soomaali ah oo maryooley arkamaysid yaa marka let's go gudaha aan rabnaa inaan markaan aan galno shop centerka ayaan gudaha u gali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo dukaamada ayaan gali doonaa waxyaabaha ay gadaan ayaan ogaa doonaa sidii u qurux badan tahay ayaan ogaa doonaa waxyaabaha aad ku arki doontaan waa yaabi doontaan kore waxa kaliya oo idiga maqan waxay noqon doontaa oo kaliya inaad aragtaan shaafi oo nool oo meel taagan inaad aragtaan ayaa macnaha maarta yaraad doonta laakiin waxa kale dhan is amazing ma arkaysaa sidii qurux badan tahay si loo sameeyay meeshana meel koronto ah jirta isma dhaysid adduunka sidaan ayaa loo hormariyay dadkoodan ayaa horumarsaday marka waxa ugu dan leeyahay macnaha ma ahan inaan idin tusayo muuqaalka ee tusaya ma ahan waxa idin tusayo waxay tahay inaan idin tusaan rabaa dadku jaanqaadka ay sameynayaan inaan la jaanqaadi karo ya adduunku ma aha kaliya horumarka laga sameyn karo siyaasadda waxa la rabaa waxyaabo aad u fara badan baa jira oo dadka ay sameyn karaan marka inay dhalinyarta siyaasadda isku mashquuliyaan ma gudboona marka let's go aan soo fiirna bilgudaha haye qaybta kale banaanka ayaan u soo baxay hadda qaybta kale ayaan joogaa banaanka ha runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan oo daawashada aad iyo aad ugu qurux badan waa kaasa meeshan marka waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo misdhehi lahayd halkan oo ahayd meel korontada laga dhaliyo ayaa qaab noocaan ah ayaa laga samayn karaa marka fikraddaasi qof ayaa keenay waana lagu guulaystay hadda waa arkaysaa waa meel aad iyo aad u qurux badan cajiib ah si aad arkaysaan santar aad u qurux badan ayay noqotay dadka ay imaanayaan oo ay ka kubushiin garaynayaan oo ay ka baashaalayaan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha noocaan camal markaa meelaha aan imaano inaan kula laabano dalkii ya laakiin shahaadooyin qalalan iyo warqado qalalan inaan la tagno muhiim maahan waa inaan la tagnaa maskax caafimaad qabta ee wanaagsan waxa curi karta waa inaan la tagnaa taas ayaan dadka iyo dalka labadaba caawinayso laakiin haddii aan sheekadana iska ahaato keliya maaragtay iska noolaano hadda wax micnaha gooni ay samaynayso ma laha marka dabakaasaad sida arkaysaan waa alcajiib waaye marka booqashada maanta hadda waxa weyn waa iska yara gaabneed laakiin haddana waxay wadaatay barnaamij wuxuu ahaa iska dhiirigelin ah oo aan ku dhiirigelinayay dhalinyarada Soomaaliyeed siyaasadda oon kaliya ku mashquulin laakiin maskaxdooda ay noqoto mid caafimaad qabta ee wax soo siyaadin karta inay noqoto barnaamijka aan ka gal lahaa sidaas ayuu ahaa marka ay hob inaa waqtiga aad u qurux badan aad ila qaadateen inkastoo meelo badan aan tusin oo aysan ii suurtagelin haddana waxaan rajaynayaa macnaha maaragtay inay noqotay mid aad ku qanacaysaan aad baad u mahadsantiin la socodkiina haddii aad nagu cusub tahayna waxaan jeclan lahaa barnaamijyadana dambe si aad ula socotid inaad saaxiib lala noqotid ee aan jidka aan ku soconno 1 milyanka ah aad wadada aad inala saartaan jeclaan lahayn waa ka saartay soo dhawaada
halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhi